waxaa goor dhoweyd xaafadda west banki ee magaalada cape town lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo ka shaqaynayay dukaan uu lahaa ganacsade soomaaliyeed. allah u naxariistee marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray saciid xuseen garabey sida uu inoo sheegay mid ka mid ah qaraabadiisa. burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah ayaa la sheegay inay dilka geysteen iyagoona durbo ka baxsaday goobta. booliiska xaafadda west banki ee magaalada cape town oo gaaray goobta ayaa wada baaritaano la xiriira cidda ka dambaysa dilka muwaadinkan soomaaliyeed. sidoo kale habeenkii arbacada ayaa iyana waxaa dhaawac loo geystay muwaadin kale oo soomaaliyeed kaasoo dukaan ku lahaa xaafadda delaf ee duleedka magaalada cape town. dilalka lagu hayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee danta yar ayaa dib u soo cusboonaaday iyadoona muwaadinkii u dambeeyey usbuucii hore lagu dilay tuulada filibi ee hoos timaada magaalada cape town kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed cali maxamuud xuseen. mustafa show isha wararka jaalidaha soomaaliyeed.